waxayna siinayaa sir maanta aan hayo waxa weeyaan in laga takhaluso in la doonayay Fahad Yaasiin markii la rabay in laga takhaluso isaga wuxuu sheegay in ay ka shaqeynayeen 5 qolo kow waxa ka shaqeeyay ra'iisul wasaaraha waxa kala shaqeeyay ra'iisul wasaaraha waa lambar 1 lambar 2 waxa kala shaqeeyay buu ra'iisul wasaaraha mukhaabaraadka maaratay dalka Soomaaliya meeshuu ka shaqeyn jiray 3 waxa kala shaqeeyay safaaradda Djibouti 4 waxa kala shaqeysay dawladda isagu ma sheegin ana sheegaya dawladda Imaaraadka 5 waxa ka shaqeysay ninka la yiraahdo Abdullaahi Abdi oo xukuma booliska Djibouti ka ah maaratay hogaamiye waxayna siinayaa sir maanta aan hayo waxa weeyaan in laga takhaluso in la doonayay 3 arrimood baa taala diyaarad baa ka soo kacaysa Imaaraadka inay qaadatay ahayd isaga diyaaradda Imaaraadka ka soo kacaysay waxay ahayd inay isaga qaadato kadibna halkay geynaysaa sidii Khashoggi loo dilay ninkii loo oran jiray Sacuudiga ahaa in la googooyo ahayd kadibna meel loo diro waa number 1 number 2 waxa laga shaqeynayay in laga saaro mataarka oo la geeyo hadii taahir gali weydo hotel kana wixii ku qabsanay oo ku qabsado waa talabaad arinta saddexaad waxay ahayd ninka la yiraahdo Abdullaahi Abdi wuxuu rabay in uu sumeeyo wayna sheekaysanayeen dadka amarka soo siiyay iyo isagu marka waxa in la sumeeyo maanta saaka oo nila hadlayo maanta galabta aan nila hadlayo waxa weeyaan waxaan idin sheegayaa ninkii in uu ka takhaluso ahaa oo la yiraahdo Abdullaahi Abdi dawladda Djibouti way xidhay waxaana lagu xidhay waxyaalo kale laakiin waxa ugu culus ee lagu xidhay waxa weeyaan waa arinta Fahad wuxuu hayaa sir culus buu hayaa ninkii maanta wuxuu ku jiraa dhakhtarka la yiraahdo al-mustashfa as-Sudani dhakhtarka Suudaan la yiraahdo ee Djibouti ku leedahay dhakhtarkaas oo la keeno qofkii sii socday laga takhalusay dawladda Djibouti ee dilayso marka ninka wuxuu la yiraahdaa waa kanzi buu ahaa kayd istaraatiijiya oo asraarta aqalka madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar iyo Khadra Xayd ay hayaan ninka xajinaya buu ahaa dad badan oo ka takhalusay maanta sirta Fahad lagu dilay isaga haya yaa badbaadiyay marka Fahad wuxuu inii sheegay qaar kamida xukuumadda Djibouti baa badbaadiyay buu war cad waxaan ku hayaa in uu badbaadiyay ninka la yiraahdo Xasan Saciid waa ninka xukuma sirdoonka Djibouti asdaasta ninkaasi wuxuu markuu maqlay ninkii mukhaabaraadka ahaa ee dalka Soomaaliya ayaa ku xaniman mataarka Djibouti wuxuu yimid mataarkii wuxuu yaa haystaa waxa lagu yiri waxa haysta Abdullaahi Abdi ninka raada booliska xukuma oo muxuu haystaa waxa loo sheegay wixii dadka loo sheego ah diyaaradda xun iyo wax baa qaraabay waxan wuxuu hayaa warka ka soo baxay dawladda Turkiga oo dhahday diyaaradda oo dhammaan dadkii rakaabka sida waa inay ku soo noqoto wadanka Turkiga markaas wuxuu yiri waxaan hayaa warkan oo iga soo gaaray safaaradda Turkiga waxa muhiim ah wasiirka arrimaha dibadda wixii oo dhan waxa muhiim ah in ninkan la sii daayo arintaasina waxa cirka ku shareeray wuxuu ahaa dawladda Soomaaliya oo gaarsiisay Djibouti Turkiga gaarsiisay amniga Fahad inay mas'uul ka yihiin Turkiga iyo Djibouti marka ninkii khadki waa ka baxay ma Abdullaahi Abdi laakiin Abdullaahi Abdi wuxuu hayaa sheekadii dhaxmartay inay Imaaraadku imato inay qaadato in la sumeeyo sirooyaadkii la dhigay iyo in la dilo oo lagu dilo maaratay hotelada Djibouti ka mid ah intaas oo dhani waxay sirooyaadkii la dhigay number 1 number 2 number 3 APC baahayd maxaa fashiliyay ninka mukhaabaraadka Djibouti xukuma oo Xasan Saciid la yiraahdo waxaa fashiliyay ninka la yiraahdo Xasan Madow loo yaqaana waxaa fashiliyay wasaaradda arrimaha dibadda oo yadna ay warkii Soomaaliya warkii Turkiga u yimaadeen waxaa fashiliyay oo kaleeto dawladda Soomaaliya oo kor u qaaday oo tiri ninka mas'uuliyadiisa waxa mas'uulka iyo ka okay marka arrimaha uu soo bandhigay waxa weeyaan Fahad wuxuu yahay maanta waa kayd sir oo laba lugood oo socda waa kayd istaraatiiji ah wuxuu hayaa khilaafkii Kenya iyo Soomaaliya intuu leeyahay halku ka bilaabmay ninka qura ee si sir u hayo weeyaan wuxuu hayaa khilaafkii Ethiopia halku ku dhamaaday maxaana isbedel ku dhacay wuxuu hayaa Eritrea ciyaalkii la geeyay halkii joogan
wuxuu hayaa gudaha Soomaaliya maxaa ka socda kulluha gacantiisa ku jiraan marka muxuu yahay waa keed istiraatiiji ah oo siyaasi ah oo amni ah macluumaadka uu hayana waa ta keentay in gurigiisa la weeraro limaada guriga loo weeraray maxaa guriga laga doonay qofka maxkamadda la taagi dara guriga ma la ilaaliyo ma askartu ku meersamaan ay raadaan markuu soo noqday loo yeero maxkamadda waxa la oran doonaa waxaan soo qad macluumaadkii keen ma la dhaahdo limaada waxaas oo dhan wuxuu ku tusayaa khutuuradda uu leeyahay ninka kani iyo halista uu leeyahay ninka kani okay taana waan ka baxnay marka aan hadalkiisa u fiirsado saddex arimood baan kala soo baxay kow nin kalsooni isku qabaa quwwa fi shakhsiyya xoog labo nin waxa uu ka hadlayo sida uu uga hadlayo garanaya bartay sida dadka loo qanciyo macluumaadka sida ugu fudud u gaarsiinaya saddex waxa iga soo baxay inuu garanayo dadka is hayaan yihiin dadka is hayaan waayo manigi sheegay guduhu waa saddex waxay is hayaan madax mucaarada waxay is hayaan madax iminka dowladda qabatay waxay is hayaan dad u naca muxuu u najaxay oo u guuleystay isagoo wadaada labo waxay is hayaan dowlado Kenya iyo waxay is hayaan dowlado jaara Djibouti waxay is hayaan dowlado caalami ah oo ay kamid tahay Imaaraadka Sacuudiga iyo Masar bas hayaan marka ninkani dadkaas oo dhan way is hayaan uu garanaya dadku la hadlayo iyo isaga ay sayn dad badan oo shicibka Soomaaliya isma hayaan way tirsadaan labo isma hayaan Eritrea Ethiopia isma hayaan Qatar Turkiga isma hayaan dadka waa isku xulufo isku meel yihiin marka uu garanaya risaaladiisa ayuu diraya ayuuna ka hadlaya ayuuna la hadlaya uu garanaya okay taan waa fahnay marka ikhwaani fillah waxa weeyaan wuxuu ka hadlay waxay ahayd arrimaha halis ah oo amniga dalka taabanaya waxaana kala soo baxnay inuu yahay nin halis ah oo akhristiisu aynan caadi ahayn nin kalsooni isku qabaa quwwa fi shakhsiyya xoog